Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Cunista babaayga iyo caafimaadka. Cashirkeena waxaan kaga hadlin doonaa babaayga muhiimadda uu u leeyahay caafimaadka iyo waxyaabaha u roon si ay dadka ugu faa'iidaystaan. 10 faa'iido ayuu leeyahay babaayga. 1. Macaanka. Inkastoo babaayga uu mac yahay, haddana wuxuu la dagaalamaa cudurka sokorowga ama kaadi macaanka. Kadib, dadka aan qabin cudurka macaanka waxay kaga hortagi karaan haddii ay badsadaan cunista babaayga. 2. Difaaca jirka. Babaayga waxaa ku badan fitamiin C-ga, wuxuuna xoojiyaa shaqada unugyada difaaca jirka, wuxuuna saxaa cudurrada iyo waxyeelka ka soo gaadho jirka dibadda kaga imaanaya si uu si fiican iskaga difaaco. 3. Caafimaadka indhaha. Babaayga waxaa ka buuxo fitamiin A iyo beta carotene iyo walxo kale oo muhiim ah oo caafimaadka aad ugu muhiimsan. Indhaha babaayga wuxuu hoos u dhigaa khatarta caadka indhaha fuule ee loo yaqaano cataract. Babaayga, yaanyada iyo karootada waa 3 cunto ee la isku raacsan yahay in laga helo caafimaad buuxo ee indhaha. 4. Cayilka. Babaayga wuxuu u roon yahay dadka doonaya inay iska ridaan cayilka maadaama uu ku yar yahay cuntooyinka dhaqso lagu dhargo. 5. Caado wareerka. Babaayga oo aan ugu bislaynin wuxuu qayb weyn ka qaataa caado saarka, waxaana uu lagu dardaarmaa haweenka caadada ka istaagi rabto. Babaayga waa in ay jarjaraan kadib malab saafi ay ku darsadaan qaando ay ku cunaan. Markaas waxaa ka bogsanayo caado wareerkii oo dhib badan ku haye haddii ay badsato babaayga. 6. Calool fadhi. Babaayga wuxuu daawo u yahay calool fadhiga, laabjeexa iyo dheefshiid xumada maadaama uu yareeyo aashitada caloosha. 7. Xiiqda. Babaayga wuxuu u fiican yahay dadka qabo sanboorka iyo xiiqda ama neefta maadaama uu hoos u dhigo walxaha kiciya alerjigada. 8. Gaaska. Babaayga caloosha wuxuu ka bixiyaa wuxuuna ka yareeyaa aasidka, qofka calooshana wuu u jilciyaa, dheefshiidkana aad ayuu u wanaajiyaa. Laakiin ha ku darin liin dhanaan iyo sokor hana ku darin. Haddii aad ku darto waxaa laga yaabaa babaayga inaad ku qasanto ku wareerto. 9. Walwalka iyo diiqada. Cilmi baaris la sameeyey ayaa lagu arkay in babaayga hoos u dhigo diiqada iyo walwalka. 10. Maqaarka iyo timaha. Babaayga wuxuu hodan ku yahay fitamiin A, wuxuuna koriyaa timaha, waxaana la dagaalamaa agoolka ee loo yaqaano dandruff. Maqaarka wuxuu iftiimiyaa, wuxuuna ka qaadaa unugyada dhintay, waxaana laga sameeyaa babaayga kareemyo iyo shaambooyin. Halkan ayaan ku soo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiise leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.